السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وان oo wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii dhalinyarada aynu ku soo qaadan jirnay daawadayaal barnaamijkeennan maantana waxa inoogu ah xogayaha ururka dhalinyarada magaalada Cabdulqaadir Mudane Cumar Cali Colow daawadayaal waa kan wareysigeena dhexmaray aniga iyo Master Colow ee daawashaha boon runtii maxamed haddaan ku sheego inta xubnoo ururka kooban yahay ilaa 53 members buu ka kooban yahay oo leh muxuu ahaa 7 guddi sare wuxuu leeyahay qaab muxuu ahaa structure uu leeyahay ilaa 7 buu leeyahay magarasaana guddiya oo dalad guuda waxa uu leeyahay muxuu wuxuu leeyahay urur hoosaad buu leeyahay magaalada Cabdulqaadir oo memberskeedu ka kooban tahay 10 habaasna waxay leedahay members ka kooban 10 hantina runtii wuxuu magaranaysaa hantina uu dhigtayna way jirtaa marka runtii waxay ku dhawaanaysaa ilaa $100 bay ku dhawaanaysaa hantidu ururkaasi marka uu haysto marka ururkani haween iyo rag uu isugu jiraa gudoomiye leeyahay xogay leeyahay gudoomiye ku xigeen leeyahay qaabkii uu leeyahay waxa uu leeyahay oo kale xeer hoosaad uu leeyahay waxa kale uu leeyahay shaambadii waxa kale uu leeyahay board uu leeyahay waxa uu leeyahay sharcigi dhamaan u dhanaa magarasaana lagu maamuli lahaa hantida dadka isku imatay waxa kale oo jirta imika runtii ceel kan halkan ka jaban oo kale oo rabnaa inaan muruq iyo wixii aan maal ka geysan karno inaan ka geysano marka runtii ururka haddaan kaaga warramo waa sida markaa wariyay maxamed wixii warbixinay ururka aan ka siiyay waa kaas marka wixii kale noo qorshaysan yahay marka wixii iga weydiinaysay diyaar baan u ahay aad baad maasantay Mudane Cumar Cali Colow waxa tahay xogayaha dalada ururada habaas iyo Cabdulqaadir ku boobeen waxaad sheegtay in aad tihiin urur u adeega danta bulshada gaar ahaan kuwa danyarta ah waxaad ka shaqaysiin baan malanayaa adeegga bulshada yes marka hadaba deegaankan ku nool waxa ka jira baahiyo fara badan baahiyahaas haddana way kala wen yihiin hadda ceelkii biyihii magaalada ka cabaysay saaka waxaan isku daynay magaaladii oo dhan doox urur baatiin waxaad sheegtay hanti $100 ah inay keeskiina ku jirto maxaa idinka qorshaysan inaad ceelkaa ka qabatiin bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan kaaga jawaabayaa taasaa tiri hanti intaa leeg baad haysataa maxaase nii qorshe mudada wariye waa su-aalaad marka ururka ruhaantii waa wuxuu kasoo jeedaa deegaanadan ayuu kasoo jeedaa marka ururku iska arkay arrintaa waxbuuna iskala meel dhigay wuuna u qorshaysan yahay inuu ceelka xogaye idinka oona ka dhaqaaqaynin maalkiina muruqiina iyo fikirka dalada ma ku darteen inaad qorshayaal kale oo dibadeed sida maamulka degmada ama maamulka gobolka hay-adaha dawliga aan ahayn iyo kuwa dawliga aba qurba joogta danaysa deegaanka wax relation maxaad samayseen oo baahidan u bandhigtay sax waa su-aal fiican maxamed marka runtii anagu firfircoonida aad baan u sameynay oo waayo waa shaqadayadiiba marka degmada maayirka degmadoo kale waanu u bandhignay intaan weli baan keenay ceelka waan tusnay magaras waxaan yidhi ceelku waa kaas baan waan tusnay marka barasaabka gobolka xitaa magaranaysaana waan tusnay qurba joogta laftigeeda Cumar Xaaji xitaa markii jaamacadda la furay noo yimidina waan tusnay marka meediyaha waan gelinay intaa waa sameynay relation waa si wanaagsan haddaad la xidhiidheen maamulka gobolka iyo maamulka degmada weli ma haysaan wax jawaab oo kasoo noqday maadaama ceelkani weli sidiya waa su-aal aad u fiican ilaa muddo wax kasoo wadaaratay muxuu ahaa ceelkan wuxuu jabiyay horta 2 bilood qaylasaan u wadnay annaga ay manado hayeen bil ka hor bay yimaadeen halka maamulka degmada weliba waan tusnay waan geynay markaa wuxuu nagu waxbaan ka qabanayaa laakiinse weli hadda wax la soo gaaray ma jirto waxaa la sheegayaa in waxa ay adigu say sheegayaan tuumbo 60 mitir inay soo wadaan aan buurama ka soo baxday baan la sheegayaa weli laakiinse wax la soo gaaray ma jirto xoogay Cumar Cali Colow intay wala kaaga mahadcelinaya wareysigaaga aad siisay aan maanta xafiiskaaga martada kugu ahay taas waa xagii dhinaca biyaha haddaynu u gudubno dhinaca caafimaadka magaalada Cabdulqaadir oo qadiimi ah oo la oran karo waa magaaladii labaad ee gobolka Sirr laga aasaasay
صح deegaan aad u fara badan ayay leedahay oo reer iyo reer magaalka iskugu jira. exact haddana waxay leedahay MCH ama mother and child health. iniga xaggiina as ay wacyigelin ahaan iyo waxqabad ahaanba maka hawlgasheen deegaanka oo barnaamijka caafimaad. haa warta waxay noo adeegsanto waa shaqadeysaan hore ugu soo sheegay ajindahayga nagu jirtaa wacyigelintu waanu howlanahay bulshadana wax uga qabano waxaan ka qabanay xagga wacyigelinta inaan dadkii maadaama ceelku jaban yahay xilli barwaaqaan dhulkan ku jirna xiroob waxay muxuu ahaa roobooga in dadku biyaha ay soo qaataan ay iska karkariyaan ciddii aan magaranaysaa karkarintahay wixii gaar waday awood wadana inay iska ridaan biyo sifeeyaha dhulkay biyuhu joogaan inay iska faruuraan sidaas ayaanu wacyigelin badan oo xagga hygiene-ka xagga magaranaysaa inay caafimaadka waxaan kaga qabanay hooyadu xilliyada uurka leedahay inay MCH-da ay la soo xidhiidho goobaha caafimaadka oo waxyaabahan wacyigelintaanu ka siinay sida ciyaalka xilliyada shubanadu markay ku dhacaan oo kale ka hor waxaa la yidhaha daaweyntu waxay ka hortagku wuxuu ka wanaagsan yahay daaweynta. Prevention is better than cure baa la yidhaha inay siiba qaataan sida muxuu ahaa biyo sifeeyaha oo aarista aan sinkiga kiniinka la yidhaahdo waxyaabahaasaan yaan ku wacyigelinaa waa sidaas. xagga waxbarashada ka waran. xagga waxbarashadu daawadayaasha qiimaha ee qadarinta naga mudanow waxaa intaa nooga dhan barnaamijkii dhalinyarada aynu maanta kusoo qaadanaynay waraysi aanu la yeeshay ogayaha ururka dhalinyarada magaalada Cabdulqaadir iyo Habaas oo aan ku booqanay magaaladaasi Cabdulqaadir. daawada intaan barnaamijka lamida ku kulmi doono waa anigu Maxamed Cawaale Daahir kaga tagay. Salaamu Allaahi calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.